waxaan ku bilaabayaa magacayga Najmi Shuuriye Maxamed waxaan kamid ahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku suganahay meeyga kamid ah Hiiraan meeshan magaceeda xaldhaa Xasan Raqi waxaan u imaaday argagixisada al-shabaab inaan ka saarno annaga u dhan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama oo gumaaday ku hayaan maatada iyo shacabka iyo intii ku nool oo dhan deegaamadan maadaama bay ku hayaan dhibaatooyin shacabka Soomaaliyeed inaan garab istaagno oo wax walba dhibay ku hayaan aan ka dulqaadno aan u taaganahay haddii nafi u jirto inaan ka qayb noqdo oo meel walba al-shabaab ku jiraan aan ka saarno diyaar aan u nahay shacabka waxaan leeyahay intii aad ma taqaanaa horta waxa aad howlgalka nagula jiro allaha guuleeyaan leeyahay wixii naga dambeeyana sida annaga wadada marnay mari doonaan rajayna dhibaatooyinka caruurta iyo waayeelada iyo dhalinyarada intaba ay ku hayaan oo u dulqaadan waayay waxaan u joogaa hadda wax walba dhibaato ay ku hayaan inaan ka saarno maadaama ay shacabka iyo marista iyo waayeelada ay dhibaato ku hayaan inta ku hayaan in ka badan inaan ku hay doono na alla daba joognaan u sheegaya wallahi intaan wadaan soo marnay ama dal soo marnay waa soo xureynay inta noo dhimana waa xureynayna waxaan leenahay inta noo dhimana guul aan rajaynayna inaan guuleysano annaga sidaan shacabka aanu garab siinayna ayagana garab ay u soo siiyaan ayna garab joogan ee waxba aynay luqyada ku jirin ay soo baxaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya soo garab istaagaan anigu baaqay ayagana